Munaasabad lagu dabaaldegay Maalinta Caalamiga ah ee Xuquuqul Insaanka oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Dallada ururada bulshada rayidka naafada Soomaaliyeed oo soo agaasintay munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay ururada kala duwan ee dallada naafada kuwa oo ka hadlay ahmiyadda Maalinta Caalamiga ah ee Xuquuqul Insaanka. Dadka ka soo qayb galay munaasabadan ayaa sheegay in xaddiga caalamiga ah ee xuquuqul insaanka difaaca xaqa iyo xuquuqda dadka naafada Soomaaliyeed, balse nasiib darro dadka naafada Soomaaliyeed waxa ay la kulmaan tacadiyo iyo gabowdfallo ka dhan ah xaqa iyo xuquuqda dadka naafada Soomaaliyeed ayaa sheegay xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho uu ka gaabiyay dardargelinta iyo sida loo fulin lahaa sharciga caalamiga ah ee CRPD. Dadka naafada ayaa baaq u diray madaxda sare ee dowladda federaalk Soomaaliya inay wax ka qabtaan tacadiyada ka dhanka ah dadka naafada kuwa oo ka mid yihiin dad adeegsada awood dowladeed oo markasta dhibaato u geysta dadka naafada. Dallada ururada bulshada rayidka ee naafada Soomaaliyeed ayaa ah mid u taagan horumarinta iyo aqoonsiinta dadka naafada, waxayna u mahadcelinaysaa hay'adaha caalamiga iyo hay'adaha dowladda oo si dhow ula shaqeeya dallada naafada Soomaaliyeed. maanta waa maalintii xuquuqul insaanka 10 Diseembar. dallada STM xafiiskeedan ku xusaynaa ee sharciga naafada oon u baahannahay in la dhammaystiro oo la dedejiyo dadka naafada ana lagala tashado. dadka naafadihi xuquuq bay leeyihiin, xuquuqdooda in loo tixgeliyo. waxay leeyihiin waxbarashay leeyihiin, caafimaad bay leeyihiin, hoy iyo xarumay lahaayeen ay u hoydaan oo wax lagu baro, oo qaar seexdaan qaarna wax lagu baro. xuquuqday lahaayeen shaqaalaha inay ka mid noqdaan, arrimaha siyaasadda inay galaan oo miiska hadalka lagu goyn ay qayb ku yeeshaan. maanta waa maalinta xuquuqul insaanka ee caalamka ah ee loo asqeeyay 10 Diseembar. waxaa farxad inoo ah maanta inaan maaragtay xusno dallada naafada SDN ay ku midoobeen ururo aad iyo aad u fara badan ayaa maanta waxay ku qabanaysaa xafiiskeeda munaasabad looga hadlayo maalinta xuquuqul insaanka adduunka oo teemka maanta adduunka la qaatay waxay tahay waa sharaf, xurriyad iyo cadaalad loo wada sameeyaa. waxaan codsanaynaa dadka naafada ku nool dalka Soomaaliya 20% ku lagu qiyaaso inay helaan xuquuqaad waafiya. waxaan baaq u diraynaa wasaaradaha iyo baarlamaanka guddiyada shaqada ku leh xuquuqul aadanaha iyo justice-ka inay isku dayaan inay wax ka qabtaan dayaca iyo musuqmaasuqa iyo dhibaatada dadka naafada hareysay taasoo muddo dheer soo jirtay. waxaan codsanaynaa waxaan cadeynaynaa in aan loo dulqaadan karin musuqmaasuqa iyo corruption-ka iyo takoorka ka dhan ah. munaasabad qabatay inaan ku qeyb gala iyo ciidanka faraxsan geeyay boqolkiiba ciidanka faraxsana ma baahna inay xuquuqul islaamka la sheego, inay xaq la sameeyo, xuquuqul islaamka inay dawladda dhaqamaaso madax ka dhaqamaas inay helno baahna oo xaqayna sharciga oo naafadana dhamaay oo haniindada iyo ciidanka baahna. maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo galo munaasabadda qabanaysa CDN oo ah maalinta xuquuqul insaanka oo ku beegan 10 Diseembar. waxaa bogaadinayaa in dadka xuquuqdooda dhammaan la dhooro, qaasatan dadka naafada ah. waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabad lagu xusayo maalinta xuquuqul insaanka adduunka ee loo asteeyay 10 Diseembar. aad ugu faraxsanahay. waxaan codsanaynaa xuquuqda dadka in la dhooro, qaasatan xuquuqda dadka naafada. maalinta xuquuqul insaanka 2022 waxaanu leenahay inaysan helin dadka naafada ahi sidii laga rabay iyo waxyaabaha qoran. hadda hortayda waxaa yaala United Nations Disability Inclusion Strategy wax la dhahayo. kaas wuxuu ka hadlaa marka inay dadka naafada ka mid noqdaan dhammaan waxyaabaha socda, hadday tahay mashaariic, hadday tahay shaqada, hadday tahay maaragtay waxbarashada, nooc walba oo UN-ka uu sameeyo. Zero tolerance ayaa ku qoray tabeelaheena oo ah exclusion inay ka yihiin dadka naafada wax walba. Zero tolerance exclusion for the person with disabilities